muddooyinkii ugu dambeeyay ayaa waxaa laga dareemayay magaalada Burco xarunta gobolka Togdheer kor u kac laxaad kaasi oo ku yimi qiimaha shidaalka ee magaalada Burco iyadoo guud ahaanba si weyn looga dareemay magaalada Burco xarunta gobolka Togdheer gaadiidleyda u kala goosha deegaanada gobolka Togdheer iyo dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa guud ahaanba cabasho ka muujiyay qiimaha shidaalka oo marka ka dambaysta cirka isku sii shareeraya iyadoo guud ahaanba magaaladana ay kaalmaha qaar lagu iibiyo shidaalka uu gebi ahaanba ka go'ay shidaalkani dhanka kalena waxaa arrintani barbar socda shidaal xabag leh oo laga keeno magaalada Boosaaso ee maamulka Puntland iyadoo ay gaadiidleyduna halkaasi cabasho ka muujiyeen shidaalkan xabagta leh oo waxyeeleeyay jinnada gaariyaasha isla markaasna waxaa magaalada Burco muddooyinkii ugu dambeeyay laga dareemayay buuqa geerashada oo ay baabuurta ku soo qulqulayeen si looga sanceeyo shidaalkani gaadiidleyda u kala baxa magaalada Burco iyo Hargeysa ayaa iyagu cabasho xoog leh ka muujiyay iyagoo intooda badan ku cabanaya inaysan haysan shidaal ay ku gaadhaan magaalada Hargeysa taasi oo sababtay inay guud ahaanba ay baaqdaan qaar ka mid ah baabuurkii u kala bixi jiray magaalooyinka Burco iyo Hargeysa waa kuwan qaar ka mid ah gaadiidleyda oo iyagu ka cabanaya shidaal yarida soo food saartay magaalada Burco xarunta gobolka Togdheer bishii u dambeysay waliba shidaalkii oo noqday bir saddexba oo marba yar la keenayo marka waxaanu ka codsanaynaa dawladda waxyaabaha noo dooranay ayaa ka mid ah marka inay wax ka qabato shidaal la'aanta iyo maciishada lafteeda oo aad u sii kordhaysa waxyaabahaas oo dhan oo isbiirsaday iyo dadkii dhibaato xoog leh ku haya si macnaheedu kalmad dadka waxay moodayaan shidaalkii anagu hayno shidaalkiina dib bulbul ku gooyo kii Boosaaso waa tileeyay hal joojiyo waa ku taageersan xukuumaddu inay total waxa weeye waxa hadda jeer waxa lagu jeedo koota dalka ku haysta koota shidaalku waa xiriiri oo shirkadda keenaysa oo maxaa ku shirkadii kale in shidaalkii la keeno ama maxaa ku dhahay haamihii bulshada goobo wax lagu soo shito weydiinta baa loo jeedaa haddaan nahay gaadiidleyda waan ka cabanayna waqtigaas xaadirka waxa lahayd xukuumadda Cusmaaneed oo koota oo maxaa ku dhahay waxyaabihii aan ka cabanay aan wax xukuumadda ka fiiriyay wax qabatay waxay saahayd marka ay wax ka qabanayso inay cidii kale bedelkeeda hay loo dhiibi lahaa meesha maxaan ku raayay laga baahi bixi lahaa wax baahida jirta umaanaan eriyeen total ama umaanaan maxaan ku raayay inay naga tagto umaanaan taageersanay in dil ay ka sii darto la waayo shidaalka laakiin waxaanu u eriyeen u diidaneen inay joogto total waxay ahayd in shidaalkii la helo oo dadkii shidaalkii keenaan xukuumadda waxa leeyahay waxay waqtiga ay eriyayso total inay wax bedelkeeda oo maxaan ku raayay ay maxaan ku raayay ku bedelayso inay keento marka haddaan nahay gaadiidleyda aad iyo aad waxaan xukuumadda ku dhalinaynaa marka aad doonayso inaad wax bedesho wixii aad ku bedelayso inay diyaar ku ahaadaan baa qurux badan saasaan kula talin lahay xukuumadda cusub waxaan u leenahay aad baan uga xunnay shidaalka maanta la waayay ee gaadiidka ay xaniban yihiin waayo taanu ka cabanaynay maaha arrintu inay noqoto kud ka guuro qanjoo guurti waxaa loo baahan yahay in wax marka isbedel wax la bedelo wixii bedelkeeda hay lagu raystaa baa loo baahan yahay magaalooyinka Burco iyo Hargeysa bariyahanba waxaa sare u kacay shidaalkii ay isticmaali jireen gaadiidka sida naaftada batroolka kadibna tan iyo intii ay ka tagtay gobolada Soomaaliland shirkadda leedahay Total halka litirada batroolka ka ahaan jiray 0.8 waxa uu maanta lagu laayay $1 iyo badh halka naaftaduna ka ahaan jirtay 0.7 waxa imika la siinaya $1 haddaba si kastaba ahaatee waxa maanta si toos ah u go'ay oo loo laayay shidaalkii batroolka annagoo taksiilayaasha u baxda Hargeysa ayaa waxaan u leenahay shidaalba waxa kale oo sare u kaca shidaalku keenay quutal daruuri dadku ay cunayeen oo sare u kac way sameeyay sida bariiska baastada caanaha oo halka uu ka ahaan jiray sababta ka ahaan jirtay $40 ay maanta marayso $30 halka daasada caanihii ay ka ahaan jirtay $14 ay maanta ka tahay $19 sare u kaca shidaalku wuxuu keenay quutal daruuriga inuu sare u kaco waxa kale oo uu sare u kac ku sameeyay korontada ama leerka ay dadka shacabka masaakiinta isticmaalaan oo halkii unit ay shirkadaha leerka sida bedel iyo ka ay ka qaadi jireen $1 halka dollar markii hore dadku ka sii qeylin jireen ayaa markuu shidaalka sare u kacay ay imikana ka dhigeen $1.25 kaalmaha shidaalka lagu iibiyay ee magaalada Burco xarunta gobolka Togdheer ayaa gebi ahaanba noqday qaar haawanaya kuwaasi oo aan haynin shidaalka intooda badan kaalmaha qaarna ku dadaalaya sidii ay u kaydsan lahaayeen wax yar oo qowtal daruuriga oo ay ku maareeyaan noloshooda waxaa sidoo kale taa bedelkeeda shidaalka kor u kacay uu saameeyay iyo waayitaanka shidaalka labaduba qiimayaasha shirkadaha leerka oo iyaguna muddooyinkii ugu dambeeyay laabay qiimaha leerka
ee magaalada burco saleebaan sahal jaamac shabakada wararka Canaman News magaalada burco xarunta gobolka Togdheer